In ka badan 550 haween ka kala yimid gobolada kala duwan ee dalka ayaa ka faa'iideystay qalliinada isku furanka haweenka ee loo yaqaano fistulada isla markaana lagu sameeyay isbitaalka Dayniile ee magaalada Muqdisho. Ololahan oo ay wado wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka isbitaalka Dayniile ayaa loogu talagalay in haweenka ku nool gobolada dalka ay ka faa'iideystaan daaweyntan lacag la'aanta ah ee loo sameynayo. Qaar ka mid ah haweenka loo sameynayo qalliinkan ayaa sheegay in cudurkan uu u geystay dhibaatooyin badan oo noloshooda saameeyay kuna xiray guri haddase ay ka bogsadeen. Maalinka imaanayay hadda farqi dheer u dhaxeeyo kaadeystii saarada leega habeeyay aad iyo aadaan ugu baahnay maasha Allah waa fiicanahay kii soo diray kii habeeyay baqar Allah siiyo waana fiicanahay sidii shalay imaantana farqi weyn u dhaxeeyo هذه سهرة naga socotay haddana ma sha Allah waxaan qaleel qalinadan oo si bilaash ah loogu sameynayo haweenka ayaa Dr. Ifraax Cabdullaahi Sheekh Maxamuud nooga warbixisay sida uu suurta galay horta qof walba wuxuu ku dhici karaa hooyada horta markay uurka leedahay ilaa iyo yani intee ka dhalayso hooyada waxa loo baahan inay sameyso wax la yiraahdo antenatal care inay hooyada ay booqato xarun caafimaad waxaana keeni karto hooyadinka yani age way jirtaa oo inkastoo in ku xirneen laakiin ayadana age-ka gabadha intayna gaarin yani xilliga guurka ayna gaarin ay guursato in ayna sameynin waxyaabo la yiraahdo isbitaalka ayna booqanin hooy waxa dhici karto hooyada ayadoo age-keeda weyn yahay waxa keeni karto because in ay ku dhacdabo ama maxaa la yiraahdaa in xilliga ay foolanayso waxa la yiraahdo inuu ku dhaco obstructive labor and prolonged labor obstructive labor waxa waaye in hooyada markay foolanayso in cunuga meesha uu ku dhago qaybta oo saxaha ama balaadarka qaadi heest inuu cunuga ku dhago oo xoog yani oo loo isticmaalo oo markaas yani xoog la soo jiido ama waxa dhici karto in ay yani ku qaadato saacado fara badan inay ku qaadato sidaas darteed waxay keeni kartaa inuu meesha because waxa ku dhacay wax la yiraahdo ischemic waxa waaye oxygen-ka oo meesha because markii balaadarka cunuga oo ku dhago iyo yani waxay keenaysaa oxygen la'aan inuu ku dhaco marka after days 7 days to 10 days ayaa la yiraahdaa way qaadanaysaa xilliga fistulada oo ku dhacayo oo isku furanka imaado because meesha oo ku dhacay oxygen la'aanta ay waxay noqonaysaa inuu burburo sidaas darteed ay waxa imaanayo fistula saas ayaa keenaysaa Abuukar Xasan Cumar maamulaha isbitaalka Dayniile ayaa isna faahfaahiyay ololahan iyo sida uu socdo isbitaalka Dayniile sida aad ka warqabtaan wuxuu ka mid yahay isbitaalada public-ka ee magaalada Muqdisho ka jira isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qaybaha waa isbitaal guud oo General Hospital ah wuxuu ka kooban yahay dhammaan qaybaha isbitaalleeya ayuu ka kooban yahay sida qaybta qaliimada surgical department qaybta haweenka maternity department qaybta caruurta pediatriga qaybta SC-da oo nafaqo darrada iyo la tacaasha qaybta internal medicine-ka qaybta wuxuu leeyahay lab wuxuu leeyahay x-ray dhammaan qaybahaas uu ka kooban yahay isbitaalka pharmacy uu leeyahay oo qayba isagoo farmasiga xaqiiq marka isbitaalka magaalada Xamar xoogaa waa ka soo fog yahay waa isbitaal lacag la'aan dadka daweeya waa ololihii tobnaad ee si bilaash ah loogu adeegayo haweenka qaba xanuunka isku furanka iyadoo boqolaal haween Soomaaliyeed ah ay ka caafimaadeen Cabdullaahi Axmed Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho.